أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaad iga doontaan salaanta islaamka xaqa kadib walaalayaal waxa la yiri waxa jira umada Soomaaliyeed murtideeda waxaan ku bilaabayaa oo ah falaadha marka kugu dhufto ayaa daran mise iyadoo falaadhi kugu taala kugu gilgila macni labada xanuun waa xanuunka hore ku dhufashada ah iyo ku gilgilitaanka waxaan saa u leeyahay inaad adigii laftikaagu aad noqotid falaadhi intaad isku dhufatid haddana inaad isku gilgishid yaaba ka sii daranba taas kale taa hore waxay ahayd waa lagu dhuftay ama waa lagu gilgilay tan adaa isku dhufanaya iskuna gilgilaya intan murtidana waxaan ku soo koobayaa halgankii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya ee eega 40 sano dhaafay halgankii sidaa ahaa aynu ka dhergsanahay waa hubaal waana xaqiiq in ay ciidanka wadaniga xoreynta jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya ay si toosa ay uga oohiyeen godkii lagu cadaabkii Malada Zeenaawi TPLF EPRDF iyo gumaysiga madowga Itoobiya anu marka la qaadayo casharadii 28 sano iyo ka badan ee barnaamijka hubaysan ahaa ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya siisay iyo intii ka horeysay ee dhaqdhaqaaqa gobonimo doonka ee jabhadda uu kor u soo kacay ayaa waxay noqonaysaa marka in sanadii 2018 aragtidii gaabatay ee maanta hadduu halgankii hubaysnaa u sii jiri lahaa ay damaaciga gumaysiga Itoobiya uu badihii iyo dhulkii Soomaaliya uu ku dhaadhacay oo ay noqotay plan 2 macni plan A wuxuu ahaa aan dhahay plan B noqotay Soomaaliya plan A wuxuu ahaa qabsashada dhameystiran ee Soomaali galbeed ay Soomaalida ogaadeen plan B na waxa weeyaan waa in Soomaalida la qabsado taas waxa beeniyay oo dhiseeyay hogaankii aragtida jaamnaa xilliga jalay marka waxa jirta ummad masiirkeed markaad hogaan u tahay markii aragtidii xalkii waara aad weydid waxa laga maarmaana inaad la kaashatid ummadda iska lahayd la jecladan ummadda Soomaalida ogaadeen ama Soomaali galbeed ayaa iska lahayd halganka gobonimo doonka ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya taama beentay baa waa runtay marka kuwii lahaa inaad ku soo celisid oo iyada loo noqdaa ee aad dhahay xal ma hayaanu waa wax la jartay waxa la yaabaa marka inay intii lagu naxariisto aad ka heshid taladii kuwa aad kula soo noqotay ee la jeclaawayaasha ee waxan iska leh qodobka labaad muxuu yahay inaad dhahdid war anigu halkaas ay iga egtahay jarashadayda intaas ay ku egtahay oo waxay yiraahdaan marka waa resignation macni waa inaad ka tanaasushid oo dhahdid ummadii ma hor joogahayo waxa dhacday labada midna ma dhicin waxa dhacday inay sanadii 2018 waad ogeydeen in gumaysiga madowga Itoobiya loo galay inay iyaga laftooda dhexdeeda la sii qaybiyay inay markii u dambeysay ay barnaamij dhahaan waxaanu nahay Itoobiya inay aqoonsadeen dastuurka gumaysiga madowga Itoobiya halkii gobonimo doon oo ahaa inay ummadaasi ka xorowdo halka waarana aynu ognahay inuu isku raacsanahay inuu yahay ummadaasi inay ka xorowdo ee jadana ay ummaddu ku jirto xorriyadii ka hor dabeecadahan aynu arkayno oo dhanna ay iska leedahay ummadaan xoroobin oo markaan u jaraabayno halkii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya waxaan dhihi karaa marka culayska gumaysiga oo haysta aqoonsi caalaminnimo oo global ah ayaa waxaynu ugu jaraabaynaa marra hoos buu u dhacayaa marra kor buu u kacayaa aan soo noqdo marka waxaan rabaa inaan marka meeshan ku soo ifiyo murtidii aan ku bilaabay ee ahayd falaadha marka kugu dhufta mise ka kugu gilgila waxaan oola jeedaa halgankii sida ahaa
ummadda soomaalida ogaadeenaya iyo xubnaha jabadda waddaniga xoreynta ogaadeenaya iyo taageerayaasha soomaalida ogaadeenaya oo dad fiican ah ilaa iyo eedda waxay wadaan taageeradii halgankii kuwii hoggaanka ay u haysteen ayay weli taageerayaan dhammaan kaadiriinta iyo ummadda soomaalida ogaadeenyana hoos bay codkoodii u dhigeen way arkaan waxa dhacaya waxaan markii arki hayay toddobaadkan iyada oo facebookyada la isku soo sawirayo meeshaa waxaan ka wadaa ummaddu doqon ma aha waxba ma ummaddu waxbay garanayaan ha moodin ummaddu inay doqon tahay ummaddu way og tahay waxaan aad ku dhaqmaysaan waxaa jira 4 baa ummadda jadeeday oo dhinaca wanaagga aan u shaqaynaynin kow dawlad xun shacabkeedii bay jadeeday oo waxay ka qaadanaysaa canshuur haddii canshuur ay ka weydo iyo jibir iyo baad way dhibaysaa way la coloobaysaa waxaa jira kuwa isku tilmaama inay samafalayaal ummadda u yihiin samafalahaas marka haddii ay ka waayaan donationkii iyakana way la coloobayaan waxaa jira kuwa isku tilmaama inay yihiin ururo siyaasi ah oo ummadda dantoodii wada haddaan kuwa ayna wax keenin shacabkuna way la coloobayaan way kadeedayaan waxaa jira kuwa xornimo doon isku sheegaya haddii ayna keeninna way la coloobayaan waxaa jira sadaqa la bax bay leeyihiin laakiin danay yay fushanayaan kuwaas waxaan dhihi karaa marka aragtidan hadda socota waa in ummaddii la sii helo mandate lagaga helahayo waxaan in ay sii wadaan oo qaaraankii ummaddaas mid baa iloobay qabiil baa jira isaguna oo la yidhaahdo qaaraan oo qofkii keeni waaya qabiilkaas waxaaba lagu magacaabaaba waa qaaraan jab bayba u bixiyeenba oo ninkaasi tolkii ka mid ma aha lama tirsanahayo qaaraannadaas ayaa waxaan u arkaa inay issue ama option ummaddii looga dhigayo waxaan saa u leeyahay aan dib u soo noqonno waayahan waxaa socday marka dawladda Ethiopia ama shacabweynaha Soomaalida ogaadeenaya waxaa gumaysta dawladda Ethiopia dawladda Ethiopia waxay leedahay wakiilo wakiilka waa daabkii adiga ahaa weeyaan horey waynu u naqaanay waxaa jira marka kuwan galay waxay aqoonsadeen ahaa sheeganaya jabhadda waddaniga xoreynta ogaadaya waxay aqoonsadeen dastuurka Ethiopia ka mid noqdeen muddo ayaa waxay daba cararahayeen wax la yiraahdo barnaamij siyaasi ah waayahan marka waxaa socda qolyaha social media ee dhalinyarada ah ee saxaafadda waxay u arkaan aragti ah in ajandihii xornimo doon uu noqday barnaamij siyaasi ah waxaan kala saaraynaa marka ishuuga Soomaali galbeed ama Soomaalida ogaadeenaya waa xornimo doon oo mideeya qoriga iyo qalinka gumaysiguna noocan halgan ee Soomaali galbeed ama Soomaalida ogaadeenaya waa systemka ummaddaasi ay kaga xoroobayso qalinkooda iyo qorigooda ay mideeyaan weeyaan ishuuga ee ma aha mid siyaasi ama aha mid Ethiopia intii laga mid noqdo Ethiopia intay ku caawiso barnaamij siyaasi aad u ololeysid Ethiopia intaad madaxweyne u noqotay ra'iisul wasaare inay Soomaali galbeed iyo Soomaalida ogaadeenaya laga xoreynayo waxaan soo qaadanayaa waxay ku qabanayaan shirar banaanada iyagoo isku sheegaya inay yihiin kuwii matalahayay ummadda Soomaalida ogaadeenaya ama Soomaali galbeed oo ay yihiin siyaasiyiin kuwaas oo samaystay dallad Soomaali ku midowday dalladaas oo macnaheedu difaaci doonta dhulka Soomaalida galbeed iyo Soomaalida ogaadeenaya waxaan idin sheegayaa Ethiopia ayaa haysata Soomaali galbeed iyo Soomaalida ogaadeenaya waxay haysataa dir dhaba haysataa waxay haysataa goday waxay haysataa qalaaf waxay haysataa wardheer waxay haysataa qabridaar waxay haysataa afdheer Ethiopia way sii dhacday Soomaaliya sii qabsanaysa ciidamadii Ethiopia waxay fadhiyaan jado yarbahaarey waxay fadhiyaan bakool bay dhabo way socotaa Ethiopia waxay heshay hoggaan Soomaaliyeed oo nugul Soomaaliya waxaad moodaa inay lixaad noqotay
وحربها مركا جميس جالس وحليه وكيله وهي مركا وحنا سويتين أنا مركا حتى هذا قنصتي إن الدولة دي إثيوبيا كم تاي حزب سياسي أنا أتاي ما أنت واحد مريسا إن هذا كل واقع ترين ومتى سومالي أوغادين إلا جميستو أو جميس تاي جبهة ودنيا حرين أوغادين هنا أي حرن مدون تاي وحربها مركا ماشي إن سوق جديو كوا شيئا يا إن يدلل سومالية دين وحربها عد شيئا سو كجارة وجارة يا إن سوق عديان إن أمتى سومالي أوغادين ما أنت جميس كتشرتو إن حل كذا ورانا إنه يها إن كعروضه حسوا عديان وحكوسوا رواقان ما دعي كرتا مركا أن كلا سارة مركا أوبشن كسياسة يحرن مدونك أجندها سومالي أوغادين سومالي جلبيد وإن أمتى سكعروضه حرية ديدنا وإن قلن يقول مليسو سيدا كبا سوقات متفر بدن أيا وطن كاس ان أفغانستان طالبان وهي الجميع انت اسو سنه حبه بدايه انت اسو دغالميه maraykan tii xoog oo dhan baa la isku geeyay falastiin waa aragtaan eega inay adduunyada oo dhan oo volkaan ahaan lagu garaacaya ay maanta noqotay in la wada hadalka saxda ah waa kaas ma dhacaysa marka xagee la yahay wada hadal hal dhinac buu ahaa waxay qolyahan ku dhawaaqeen sida awgeed شعب وينها تايريا شاجن جبهة ودنيا حرينته وقاعدين كادرينته وحنا قد دقينا إنه وحيابها النوع عاصو كلا أي سنو قاضنين إنه هالجن أي وضانه وحن كوضع وقوليه مركز ضدك اللعبة يعني شعبك إن كوا جبيل شري إنه كهلان قارامو سلا أويد هالجن وحكو صوروري إني قاران نور هالسدو waxaan jirina markaa waxay noqonaysaa falaadii aad adigu isku dhufatay gumaysi u gashay ayaad haddana ku sii diljilaysaa shacabkii Soomaalida ogaadeen iyo xubnihii jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen insha Allah halku waa halgankii jabhada wadaniga xoreynta oo lagu soo celiyo tubtiisii saxda ahaa halka waare ummadaasina waa in gumaysi madow ku xorowda waa in la helo gumannimo doon kaasna ishuugeeduna waa barnaamij xornimo doon weeyaan oo qori iyo qalin bamideeya هجاد ومداسنا جوري نقطة وكحرون تونتا عدكينا أنت حسنا أقول تلا جلينا إنه مد اللي سوى ذاكو إن على يقعد عني واحد شريد ميسي مدو إثيوبيا هدعو سومالي وقاعدين يحرودوا الصور نقطة وناقصين وأنا واحد مسعود واسمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.